kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada channelka Barka 252 haddii channelku cusub tahay subscribe saar like share comment mahadsanidin. Kooxda Barcelona ayaa sii xajisatay hoggaanka Group F kadib markii 2-1 ay ku garaaceen kooxda Slav Prague ee marti u ahaayeen xiddiga Argentine Leo Messi oo hoggaanka u dhiibay ayaa kulankan loo diiwaangeliyay 2 rikoor halka Suarez uu gacan ka geystay goolka guusha ee kooxda kubadda cagta Barcelona ee ku badisay xalay. Leo Messi ayaa noqday xiddigii ugu horeeyay 15 xilli ciyaareed oo isku xigta goolal ka dhaliya tartanka UEFA Champions League. Leo Messi wuxuu sidoo kale barbareeyay halyeeyada Real Madrid Raul iyo Cristiano Ronaldo asagoo shabaqa soo taabtay kooxdii 33 tartanka UEFA Champions League. Kooxda Barcelona ayaa ciyaarta iska maalmuleysay kadib goolkaas, laakiin daqiiqadii 20aad goolhaye Marc-Andre ter Stegen ayaa badbaadin cajiib ka sameeyay ciyaartii xalay. Waxay ciyaartu ku soo ilaatay Barcelona oo 2-1 ku garaacday kooxda ka dhisan Czech Republic ee Slav Prague. Natiijada ayaa ka dhigan in Barcelona ee Group F ku hogaaminayso 7 dhibcood halka Borussia Dortmund iyo Inter Milan ay wada leeyihiin min 4 dhibcood ayagoo kooxda Jarmalka ee ku jirto kaalinta labaad. Kaalinta koowaad waxaa ku jirta kooxda kubadda cagta Barcelona. Channelka Barka 252 fadlan ruguma channelka hadda ku cusub tahay inta muuqaalka xiga isku arki doono. Sidaas iyo nabadgelyo.